صفته الكريمة أخذته مرضعة كان اسمها حليمة وقد رأت معه صفته الكريمة وخيره العميم ونوره العظيم وخيره العميم ونوره العظيم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقليسين عدك واضح ميه. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، waxaanu soo socday siirada rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam, gaar ahaan xaaladii ku saabsanayd hijradii xabasha iyo waxa arin uu noqday. intaa bacdigeeda quraysh dacwada rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu wado runtii xeelad way u weyday. hagar kasto iyo shirqool kasta ay samaydaan wuu noqon waa mid lagu najaxo ama mid lagu guulaysto. sababta waxay ku fakareen nabiga sallallahu alayhi wasallam dilkiis, laanna waxay ogaadeen si kale in dacwadan lagu istaajin karin. qof la dilo, qof la xiro, qof la may rasuulka dilkiis sallallahu alayhi wasallam inay dacwadan ay ku istaagi karto sideeda. laakiin waxay isweydiiyeen sidee Muhammad loo gaaraa صلى الله عليه وسلم. حيالي أبو طالب أي بلن قاضي إنه دفاعيه صلى الله عليه وسلم. مركو وحي نقطي أبي طالب إلا واجهه، أبي طالب إلا واجهه. وحاتمد أما يمد قريش مدحذودي أبا طالب أي أيماتين واشتكدي أقوه ريدي ama dacwadii ugu horeysay rasuulka sallallahu alayhi wasallam adeerkiisa looga dacwooday. waxay ku yiraahdeen Aba Taalibow, waxaad tahay qof da' sharafna waad leedahay iyo darajo anaga dhexdeena. qof weynaad tahay oo sharaf iyo darajoba dhexdeena ku leh. waxaan kaa codsanaynaa inaad naga reebto walaalkaaga wiilka uu dhalay, amaba horaba kaaga codsanay in walaalkaaga wiilka uu dhalay oo adeer u tahay inaad naga reebato. waad naga celin weyday. allaan ku dhaaranay ma adkaysan karno oo uma sabri karayno arrintani oo aabbayaalkeena caydooda ah, caqligeenoo la liido, ilaahyadeenu la ceebeeyo. arrin aan ku sabri karayna ma ahan. laba mid soo galay ku yidhaahdeen, inaad naga reebato ama dagaal una dhex maro anigii adigaba. labada koox ciddii baaba'da ama ciddii guulaysad ha u harto reerka, wax kale kama dhaxayo oo hadda aan kugu nimid ma jiro. لأن قريش waxay dareemeen jiritaankoodii inuu halis u yahay. rasuulka sallallahu alayhi wasallam dacwadiisii jiritaankoodii inay halis u tahay oo adduun iyo aakhiraba aan dhihi raba diin iyo adduunba
in loo dan leeyahay in laisla dabagediyo quraysh arrinteedii. arrintu way ku adkeeyeen abu taalib wuu weynaystay goondiga iyo handadaadda aadka u adag qurayshay ula timid. runtii insaan weeyaan, shaksi keliya weeyaan, wuu difaacay nebiga, laakiin dhib kama bixi karo. rasuulku uu u cidiray sala allahu alayh wasalam markay ka tageen, markaasaa wuxuu ku yidhi, walaalkayga wiilkiisiiyo, tolkaaga ayaa ii yimaaday, waxayna igu yidhaahdeen sidaan iyo sidaan, ee waxaad yeeshaa u dhimri wiil dushayda iyo nafsadaadaba. aniga ii dhimri, adigana isu dhimri. ha igu xambaarin arrinku waxaanan karin dhib dusha ha iga saarin. hadalkaa markuu yidhi abu taalib, rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu malleeyey adeerkiisii markaan inuu garabkiisa ka bixi doonaba, oo gargaarkii iyo uu u hayayba inuu ka tabarbeelay, oo uu leeyahay aniga intaa kadib ama intaa ka badan bas arrintu way igu cuslaatay. rasuulkana arrintaa maxay ku samayday? asigana ma tanaasulay oo muxuu yidhi, meel cidliyaan lagugu cunin. ninkii ku taageerayay ama difaaca kuu ahaaba hadduu haray, nebiga magii ku fakaray asigana calaa tallaabooyinkiisa inuu dib u qaado? may, bal dhegaysta wuxuu nebiga yidhi sala allahu alayh wasalam. lan qadiyadan diin waaye, qadiya adduun ma ahan, waa amar rabbi xaggii uga yimid oo nebiga horaaba loo yidhi, fasdac bimaa tu'mar wa acrid can ilmushrikiina. la jahar waxa lagu amrayo, kollay dhibaa kaaga imaan doona. see yeelay? haddaaba la siiyey digniinta. waxaa la yidhi wa acrid can ilmushrikiina, mushrikiintana isaga sii jeedsad, dhibkooda waxay kuu geysanayaan dhig ha u dhigin. markaasaa rasuulkeena sala allahu alayh wasalam adeerkiis wuxuu ku yidhi markuu warkaa ka maqlay, adeerow, allan ku dhaartay, qoraxda midigtayda hadday saaraan, dayaxana bidixdayda, oo adduunyadoo dhan gacanta ay ii geliyaan, si aan uga tago arrinkan, wuxuu yidhi arrin dhacayda ma ahan, arrin dhacaydo ma ahan. oo maxaa uu leeyahay? kama tegayo arrinkan alla inuu ii hergeliye maahane sokodiisii aan dhinto ama aan ku dhex dhinto. war meesha ugu dambayday ama uu wax ku kaga dhaadhicin karo adeerkiisa ayuu faraha u saaray. adiga garabkayga taagnow ama garabkayga ka bax, arrinkan arrin aniga aan dhaafaya ma ahan, geeriyaan ka xiga, inuu ii hergelo ama inaan ku dhinto. war cad waa diinta xaqiiqadeedana sidaa waa, oo allah cidda mas-uuliyadeedii uu u dhiibay oo muslimiinta ah rasuulka ka dhaxlay sala allahu alayh wasalam, ayagana arrintoodii sidaanaa laga rabaa. allah naga dhigo. laakiin qof caajizayo, qof cagajiidayo, qof maalin diintu u firfircoon, maalinna adduunyadiisii u sii jeesayo diin dhan faraha ka qaaday, maya. waa saan u bilaabay uu leeyahay, ilaa iilka lay dhigo kama harayo. markaasuu nabigeena sala allahu alayh wasalam uu ilmeeyey, wuu ooyena, indhihiis intay ilmo ka soo daateen ayuu ooyey, wuu iska istaagay sidoo raba inuu sii baxo. markuu sii jeedsaday ayuu u yeeray abu taalib. markaasaa wuxuu yidhi, markuu u yimid rasuulka sala allahu alayh wasalam uu u soo laabtay, ayaa wuxuu ku yidhi, orodoo tag walaalkayga wiilkiisiiyo, ku hadalna waxaad jeceshahay, allan ku dhaartay, waxna ama cidna kuma dhiibayo weligayga. bas waa abu taalib xaqiiq u arkay, suuragal ma ahan moxamed sala allahu calayh wasalam oo ammaanadiisii loo dhiibtay isigoo 8 sano jira inuu maanta faraha isaga qaado. arrintaa way u cuntami weyday, inkastoo hadda diin uusan ku xigsanaynin, laakiin ammaano aabbihiis u dhiibtay ahayd rasuulka sala allahu alayh wasalam
adeeradiisii asigaa laga doortay abu taalib na allah rasuulka jacaylkiisii qalbigiisu ku abuuray arrinta way u cuntami weyday oo quraysh waxay ku hadlayday isay nafsadiisa u qaabishay bal uu iska bedelay markuu arkay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhabta arrinta ay ka maraydo wuxuu yidhi waxaad jeceshahay ku hadal allan ku dhaartay ciidan kuu dhiibayo weligayga ma jirto rasuulkeena shaqadiisuu sii watay quraysh waxay filanayday waxbaa isbedeli doona hadal culus ayaad ku tidhaahdeen odaygii abu taalib ahaa laakiin waxba isma bedelin nebiga sidiisii sala allahu calayhi wasalam ayuu u dhaqmayaa sida qof aan waxba loo sheegin oo kale quraysh markay aragtay rasuulka in xaaladiisu sidii ay tahay shaqadiisu uu sii wato waxay garteen abaa taalib inuu diidan yahay rasuulka sala allahu alayh wasalam inuu garabkiisii ka baxo isla markaana inuu go'aansaday quraysh arrintaa inuu ku gooyo inuu go'aansaday oysan marnaba wiilkiisa wuxuu jecel yahay uusan ka hor istaagaynin waxay doonto quraysh ha samayda waa sidaa darteed markay arrin sidaa noqotay mar labaad ayaa quraysh intay wada shawreen shir ay qabsadeen dib ugu soo noqdeen abu taalib laakiin taladii hore tu ka duwanay markaan ula yimaadeen waxay horey u soo kaxaysteen wiil la yidhaahdo camaara ibn alwaliid ibn almughiira markaasay yidhahdeen abaa taalibow igaarkaan u jeedaa waa quraysh wiilashooda kan ugu quruxsan waay oo hadda soo kacayo qaaday yidhaahdeen adiga iska leh diyadiisa iyo gargaarkiisaba xooggiisa iyo diyadiisii adaa iska leh haddii la dilana adigaa diyadiisii qaadanaya intuu nool yahayna adigu ku difaacaya wiil ka dhigo adaa iska leh waxaad noo dhiibtaa anagana walaalkaaga wiilkiisii midkaan diinkaaga kugu khilaafay iyo aabbayaalkaaga diinkooda isla markaana kala geeyey tolkaaga isku duubnaanshahooda kala jijibiyey caqligoodina doqomeeyey noo dhiib aan dilne maxaa yeelay waa nin loo badashtay kan haddaan dilna kan adiga hayso meeshii arrintu taagan tahay abu taalib markay sidaa ku yidhaahdeen wuxuu yidhi allaan ku dhaartay waxaa baas yeeshay waxaad igula gorgortamaysaan wiilkiina miyaad i siinaysaan oon markaa idin korinaya oon idin cunto siinaa kaygan idin dhiibaa waad dilaysaan subxaana wuxuu yidhi arrinkaa wallaahi aan ku dhaartay wax dhacaya weligiis ma aha oo waxaad leediin kaaga aan dilno keenana noo kori markuu sidaa yidhi wax dhacaya ma ahan wax weligiisa dhacaya ma ahan ayaa waxaa soo istaagay ama hadalka qabtay raggii odayaalka yimid mid ka mid oo magaciisa la yidhahdo almutcim ibna cadiyin ibna nawfal ibna cabdi manaaf cidduu ka mid yahay marka abaa taalib ninka ugu dhowaay dadka waa walaalkiisii reer cabdimanaaf weeyaan markaasuu leeyahay ilaahan ku dhaartay abaa taalibow qoladaada way ku cadaaladnimo sameeyeen wayna ku dadaaleen say kaaga leexin lahaayeen waxa adiga ku dhibayo laakiin ma arkayo inaad doonto inaad waxba ka ogolaato tolkaaga ma rabtid waxba inaad ka qaadato markaas abu taalib asigana u jawaabay midkaan uu ilaahan ku dhaartay waxaad ii garsoorteen ama aad ii cadaaladnimo samaydeen ma jiro laakiin adiga naftaadaba waxaad ku raacday raggan aniga hoojintayda iyo qoladan korkayga ah ee iga hor yimid inaad garab siido adiga naftaada waxa kuu muuqdo samee ood ka badin weydo ood awood u leedahay samee arrintu way xumaatay fadhigii wuu xumaaday odayadii waxay ka gaartay meeshii ugu dambeeyey waxaa lays yidhi bax la taga waxaad haysataan waxaad keeni kartaanna keena
taladaa aa ii wadaan tuu weligayga aan yeelaya ma aha. subxaana allah. sidaasay arrintii noqotay. quraysh markay ku guul daraysatay labadii ergaba tii hore iyo tanba markay ku guul daraysteen maxay samaynayeen? faraha may isaga qaadeen? maya, bal iyagana waxay u laabteen dhibkii maalintii hore ay wadeen oo cadaabkay cadaabayeen saxaabada ridwaanullaahi calayhim, weliba intii hore in ka sii daran ayay la yimaadeen oo tacdiib ah. muddadaa dhexdeeda ee xaaladdu saa ay u cakirantay, ay habeen madow oon lays arkaynin oo kale ay u noqotay arrintu, fakrad kalea ku soo dhacday raggaan quraysh oo ah aadna qalbigooda ugu weynaaday rasuulkaba in laga takhalluso sala allahu alayh wasalam, waddo kalena loo maro, rasuulka in la dilo waddo kalena loo maro si arrintaa lagu gaari lahaa. runtii fakraddan aadka u foosha xun ayaa waxay noqotay mid sabab u noqota islaamka inay ku soo biiraan, garabna u noqdaan labadii geesiyaalka ahaa ama halyeeyada ahaa ee waaweynaa, weliba maka halyeeyadoodiina ka mid ahaa, waa xamza ibna cabdilmutalib iyo cumar ibna alkhataab. lan arrinta markaa waxay noqotay muxamed dhiiggiisa hala daadiyo. quraysh oo dhan odayadoodii way isgaarsiiyeen, abutaalibna tabcan inay soo gaarta arrintaa, laakiin cid uu la tegi kara ma lahan oo arrintan ka joog waa las gooyey meesha, waxaa lays yare arrinta meel xunay gaartay. waxaa rabtaan sameeya waa dabcan arrintan way soo gaaraydaa. quraysh intii u fircoonayd arrinta rasuulka sala allahu alayh wasalam in laga hor yimaadana kuligooda dhexdooda waa la isku waafaqay. ayib, ninka la yidhahdo cutbata ibna abi lahab, bal fiiri arrintia bilaabanaydo oo ah in asluubtii hore wax laysdhodhoobayay ama layscaynayay in arrintu ay ka baxday, bal si toos la raba nebiga sala allahu alayh wasalam in wax looga qabto, arrinteedaa muuqaalkeedaa bilowday. wiilka la yidhahdo cutbata ibna abi lahab oo nebiga adeerkiisi dhalay, ilma adeerna ayay yihiin, gabdhihiisa midoodiina uu qabay, ayaa maalin rasuulku u yimid sala allahu alayh wasalam. markaasuu yidhi, aniga waxaan ku kufriyey wannajmi idaa hawa wa biladii danaa fatadalla. aayaddii macnaa luqadday fahmayaan, micnaha ay gudanaydo waxa ay ka sheekaynaysaan ku kufriyuu leeyahay suuraddaas ama aayaadka. markaasuu nebiga iska dul fuulay wiilkii asiga ahaa, ilma adeerkana ay yihiin, marna sadaq uu u noqday rasuulka sala allahu alayh wasalam. rasuulkuu iska fuulay, dhib iskala dul fuulay, wuu dhibay nebiga ilaa heer rasuulka qamiiskiisa uu jeexay. wuxuu ku sameeyeyba wejigana candhuufu uga tufay sala allahu calayh wasalam, laakiin candhuuftii kuma dhicin nebiga dushiisa sala allahu alayh wasalam, laakiin ninkan wuu hamiyey. heerkaa markuu gaaray oo uu sidaa u foolxumaysanayo rasuulka allah sala allahu alayh wasalam ama ugu dhiiranayo, oo ihaana meeshii ugu dambayday uu damacsanaa inuu ku sameeyo, waxaa dareemaydaa nebiga arrinta inay aad u xanuunjisay. bal rasuulka sala allahu alayh wasalam xaaladda markay heerkaa gaartay wuu habaaray wiilkii, lan rasuulka cidna gacan uma qaado, mana ahan akhlaaqdiisa, allana ma amrin xataa saxaabada inay isdifaacaan. rasuulkeena sala allahu alayh wasalam wuu habaaray, wuxuu ku yidhi, allahuma sallid calayhi kalban min kilaabik, allah yo waxaad ku dirtaa kani eeyahaaga ka mid ah. waa la ogolaaday ducadii nabigeena sala allahu alayh wasalam, sideedaba madluumka ducadiisa waa la aqbalaa, dib ha loo dhigo ama hala soo dedejiyo. wuu baxay wiilkan cutayba, haddayda cutbaan idin irisaa malaynaya afkaa dafay, waa cutayba. wuu baxay cutayba mararka ka mid ah safar oo quraysh ayuu raacay.
markii la degay meel shaam ka mid ah oo magaceeda la yidhahdo azarqa oo degaan ahaan loo degay inta socdaalka lagu jiro waay habeenada ka mid ah maalin waxay ahaataba ama habeen dheh raggii waxaa ku yimid libaax ayaa soo dul meeraysaday ama ku dul wareegay way u jeedaan markaasaa cutayba wuxuu bilaabay inuu argagaxayo uuna leeyahay alla walaalkayga wuu gablamay wallaahi aan ku dhaartuu leeyahay kii i cunayay waaye siduu muxamedba igu habaaray kanayto yacni walaalkayga wuu i weyn doonaa uu leeyahay walaalkiisa kan hooyadiis dhashay aabbihiisu u wadaa tabcan wuu gablamay uu yidhi mar haddii aniga lay waayo maxaa yeelay libaaxani wuu i cunayaa siduu muxamed igu habaaray bal wuxuu yidhi moxamed wuu i dilay asoo maka joogo anoona shaam joogo arrinta sidiiyay noqotay libaaxii wuxuu ku soo booday cutayba wuxuuna kala dhex baxay dadkii uu ku dhex jiray inta madaxa uu ka qabtay ayuuna gowracay midtaasay ahayd waxaa ka mid ah waxa laga sheegay cuqbata ibna abi mucayd oo ku fariistay nabigeena sala allahu alayh wasalam qoortiisa sharafta badan rasuulka sigoo sujuudsan ilaa heer ay gaartay nabigeena sala allahu alay wasalam labadiisa indhood inay soo baxaan waxa uu ku sameeyey ninkaa rasuulka sala allahu alayh wasalam intuu qoortu kaga fariistay waxyaabaha caddaynayo raggaa qooqay ee quraysh rasuulka sala allahu alayh wasalam dilkiisa inay dooneen waxaa ku tusinaya ibnu isxaaq wuxuu wariyey oo xadiis dheer ah wuxuu yidhi abujahla wuxuu yidhi quraysh kulankeedii moxamed wuu diiday ilaa waxa aad u jeeddaan mahay taladeena waxaan ka reebnay wuu diiday sidaanuu damacsan yahay aad u jeeddaan oo ah diinkeena inuu ceebeeyo aabbayaalkeena uu cayo caqligeena uu doqomeeyo ilaahyadeena uu aflagaadeeyo wuxuu yidhi anigu allan waxaan kula balamayaa inaan u fadhiisan doono dhagax anigoo wata dhagaxaasoo xataa qaadidiisii aanan awoodin laakiin aan isku dhibi doonu leeyahay inaan ula fadhiisan doono hadduuna markuu sujuudo salaadiisa madaxaan kaga jijibin doonaa dhagaxaas aan kaga bashiiqin doonaa markaa sidaa aan yeelana wuxuu yidhi idifaaca ama idhiiba ama idifaaca bani haashim inaad ii dhiibtaan ama inaad iga difaacdaan waxaad doontiin sameeya laakiin moxamed arrintan maba ku fiirsan karo intaa bacdigeeda reer banu cabdimanaaf waxay u muuqdo ha sameeyeen marka waxaa dareemaydaa quraysh meeshii ugu dambeyday inay arrinka maraydo intaa nebiga loo shirqoolayaa loo dhaaranayaa liajli haadihi dacwati axabati fillah dareenkaaga macnaha sirada wax loo akrinaayo inaad fahamtid nebiga heerkuu la soo maray dacwadan iyo heerka cadowgiisii ay ka gaareen dacwadan baabi'inteeda iyo siduu ugu mintadsanaa ama ugu adadkaa oo adigana maanta aad u fahamto rasuulka sala allahu alayh wasalam markuu kuu yeerayo arrintan inuu kuugu yeerayo adigana arrintan markaad ku ajiibtood qaadato diinkani in aad noqoto mid u shaqaynayo sida rasuulkii allah sala allahu alayh wasalam ee kuu yeereed ka ogolaatay mid u shaqaynayo ayuha alaxbaab rag iyo dumarba wallahi ficlan saxaabada nabiga sidaanay noqdeen ilaa iilka la geeyay adduunyadan ay faaruqeen allana sababtooda uu ku kor yeelay diinkani ay gaarsiiyeen meel alla og yahay oo maanta anaga aanan awoodin gaajo darteed inaan ugu socdaalno calaa kulli xaal axibatii fi illaah abujahal balantaasuu qaaday allana kula ballamay sidii uu sameeyey
abujahal markuu waagu u soo bariyey dhagaxiyuu soo qaaday siduu tilmaantu u bixiyey rasuulku u fariistay sal allau alay wasalam asigoo sugayo kacbadii rasuulka sida caadadiis ahayd uu ku soo kalahayay kacbada siduu ugu soo kala hijirayba waayo asigoo tukanayo sala allahu calayhi wasalam qurayshna ayadana boosaskooda naadiyadoodii meelahoodii golahooday soo fariisteen ayagoo dhahay maanta daawada waxa dhici doono bal daawada qof kastaba uu leeyahay maxaad yuusan waxaan lagaaga sheekayn indhahaaga ku arag naadiyadoodii meeshay kacbada ka fariisan jireen ayay soo fariisteen iyagoo dhahay abujahal muxuu samayn doonaa fiiriya asigana waa kaa xagguu fadhiyaa rasuulkiina waa kan sala allahu calayhi wasalam soo galay rabbigiisii salaad u xirtay markuu sujuuday sala allahu calayhi wasalam abujahal dhagaxiyuu soo xambaaray dhankii rasuulkuuna soo aaday sala allahu calayhi wasalam markuu u soo dhowaaday dibuu u gurtay gadaalu u noqday sigoo ah mid jabay xataa midabkiisi isbedelay aadna u argagaxsan sida ay ka muuqato gacantiisana dhagaxii ay ku qallashay oo la raba nebiga inuu ku tuuro uba hayaba uusan tuurayninba subxaana allah ilaa markii dambe gacantiisa uu ka tuuray dhagax dhan kale uu u tuuray qurayshaa ku istaagtay oo dhankiisa u istaagtay abujahal markaasay ku yidhahdeen maa laka yaa abalxakam naanaystiisa abalxakam aa la dhihi jiray abalxakamoo maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi waan istaagay oo moxamed xaggiisaan aaday saan ugu sameeyo waxaan xalayto idin iri markaan u dhowaadayba sokodiisii waxaa lay bandhig uu yidhi faxl min alibil geela kuwooda awrka ah geela kuwooda ragga ah aadka qatarta u ah wax u eg ayaa lay bandhigay oo ii soo muuqday allan ku dhaartuu yidhi maya walle kaa qoortiisii oo kale weligayga ma arkin uu yidhi iyo siduu u dheeraa ama siduu macnaha yacni madaxiisaan dhahay madaxiisoo kale weligayga ma arkin iyo luquntiisi kaa geelna ka weynaa uu yidhi iyo miciyaha ku yiilay weligayga geelku ma arkin wuxuu damcuu yidhi inuuba i cuno inuu i cunuu damcay subxaana allah ibnu isxaaq wuxuu leeyahay waxaa lay sheegay allah rasuulkii sala allau alay wasalam inuu yidhi jibriiluu ahaa calayhi salaam midka uu sheegayo jibriiluu ahaa hadduu soo dhowaan lahaana wuu qaban lahaa hadduu soo dhowaan lahaa wuu qaban lahaa laakiin qof meel xun loo wato weeyaan asigoo intaa arkay subxaana allah ma waantoomin cabsina ma gelin waa sida mujrimiinta xaaladooda ay tahay isla markiiba haddii kheyr aan lagula rabin waxaasoo dhan cabsidiisii murugadiisi waa lagaa tirtiraya kii shalayto la cabsi geliyey ama qatarta ka badbaaday maba ahidba taa ku garo markii xaqa ama kheyr aan lagula rabin wacdigii iyo waanadii iyo kheyrkii cabsidii waa lagaa tirtiraya xumidii iyo waxaa damacsaneedaa lagu sii qurxinaya intaa bacdigeeda abujahal rasuulka sala allau alayh wasalam wuxuu ku sameeyey arrin keentay inuu xamsaba soo islaamo waana u tegi doonaa ama kuwii qooqay quraysh intoodii kala miya dilka rasuulka sala allau alayh wasalam fikraddeedii marnaba kama zuulin oo ma dhaafin oo mana ka soo degin ilaa qalbiyadoodii ay ku bislaatay oo la yidhi arrintaanaaba noob macaan in moxamed la dilo sala allau alayh wasalam oo hadba fursad loo raadinayo ibnu isxaaq wuxuu warinayaa xadiis laga wariyay cabdullaahi ibna camr ibna alcaas wuxuu yidhi goob joogaan ahaa ayagoo xijir ismaaciil ku kulmay quraysh ayaan joogay rasuulkay ka sheekeeyeen sala allahu calayhi wasalam markaasay yidhaahdeen walle horey uma arkin ama wax la mida ma arkin sabarkeena ninkaan aan u sabarnay
oo ninkan saan ugu sabarnay wax horey loo arkay ma ahan oon cid saa ugu sabarno walle waxaan ugu sabarnay arrin aada u weyn ayagoo saa isu ciilkaambinayo rasuulkiyaa soo galay sala allahu calayh wasalam wuxuu bilaabay inuu soconayo suu u socday rugnigiiyuu aaday xajarul aswadkii uu salaaxaday kadibna wuu agmaray koox bayd ka fadhiday qoraysh ah markaasay isu iljibiyeen ama hadal ku dureen hadal ayay ku dureen cabdullaahi bni camr wuxuu leeyahay inay wax ka sheegeen rasuulka sala allahu alay wasalam wejigiisaan ka gartay dabcan uu ka fogaa asiga qoladaa markuu soo agmarayay nebiga wejigiis wuu isbedelay cabdullahi wuxuu leeyahy waxaan dareemay inay wax ka sheegeen oo asiga uu maqlayo laakiin cabdullaahi uusan maqlayn rasuulka laakiin uu maqlayo oo wejigiisi la doorsoomay sala allahu calayh wasalam wuu iska maray haddana mar labaaduu soo maray ama koox kaluu soo agmaray wuu dawaafayaa li'anna sidii oo kale waray ku dureen wuxuu yidhi taa haddana rasuulka sal alla alay slm wejigiisaan ka gartay koox saddexaad markuu soo maray ama mar saddexaad ama isla ayagii waa markuu dawaafaba uu soo agmaraba wax bay u dhiibayaan wax dhibay oo hadal ah markii labaad markii saddexaad sidii oo kale ayay war ku dureen wejigiisaan ka gartuu yidhi sal allahu alayh wasalam markuu saddexaad wuu istaagay markaasaa uu yidhi ma maqlaysaan qurayshay quraysh kulankeedii ma maqlaysaan wuxuu yidhi allan ku dhaartay nafsadayda gacantiisa ay ku jirto waxaan idinkula imid gowracidaan idinkula imid inaan idin gowraco hadal micnihiis uu yahay ama arrin idin gowracaydaan idinla imid luqunta idin goynayso raggii kelimaddii meelay kaga dhacday kulligooda raggii sidaa nebiga wax uga sheegayay waxay noqdeen kuwa qalalay sida ayagoo madaxooda shimbiro ay ku degeen oo kale xataa kii ugu darnaa ayaga dhib ka waday wuxuu noqday kii ugu fiicnaa wixii ugu fiican uu dhihi karo ayuu rasuulka ku yidhi sala allahu alayh wasalam uu yidhi iska laabo yidhi iska teg abalqaasimow allan ku dhaartay jaahil ma ahid subxaan allah maalintii labaad marka la gaaray sidii oo kale u kulmeen oo rasuulka ayagoo ka sheekeynaya sala allahu alayh wasalam wuu ku soo korbaxay haddana sidii shalayta oo kale laakiin markaan uma kaadinin way ku boodeen sala allahu alayh wasalam sida hal nin boodintiisa oo kale ugu soo wada boodeen way hareereeyeen cabdullahi bni camr wuxuu yidhi waxaan arkay hubaale allan ku dhaartay nin ayaga ka mid ah intuu nebiga kuleetiga ka qabtay bashaar mu wata nebiga maya garabka u saarnaa meeshuu isaga yimaaday intuu ka qabtay sida meesha kuleetiga oo kale isugu keenay ayaa wuxuu arkay uu yidhi saa u qabtay saa u hayaa ragga kalena ku hareerisan abuubakaraa istaagay uu nebiga difaacay sokodiis istaagay asagoo weliba oynaya dhahayana ma ninkaad dilaysaan inuu yidhi rabbigayga allah weeyaan darteeda miyaad u dilaydaan maad ka joogtaan markaasay ka kala tageen ibnu camr wuxuu yidhi arrinkaasaa wuxuu waxay ugu daran aan arko quraysh rasuulka inay ka gaartay sala allahu alayh wasalam riwaayad bukhaari uu warinayo waxay ku jiray xadiis laga warinayo sidoo kale curwata ibna zubayr inuu yidhi cabdullaahi ibni camr ibn alcaasaan weydiiyey wuxuu ii sheegay wax shaykan ugu daran quraysh rasuulka ama nebiga ay ku samayday sala allahu alayh wasalam ayaan weydiiyey inuu ii sheego markaasuu uu yidhi waqti rasuulka sala allahu alayh wasalam ama nebiga ku tukanayo kacbada qolkeeda ayaa waxaa u yimid uri cuqbata ibna abi mucayd midka la yidhaahdo faajir ka ahaa markaasaa maradiisa wuxuu uu saaray ama uu ku qabtay rasuulka sala allahu alayh wasalam luquntiisa sida adigoo gadaal lagaaga yimid qoorta mara laguu geliyey ama xarig laguu geliyey oo kale markaasuu uu ceejiyey uu yidhi ama uu ku ceejiyey ceeji aada u adag uu yidhi
subxaan allah. abubakaraa yimid oo cuqba ibn abi mucayd ka qabtay, labada garbood intuu ka qabtay uu ka difaacay nabiga xaggiisa, uu ka soo istaajiyey. markaasuu yidhi taqtuluuna rajulan an yaquula rabbiy allah, war ninka ma waxaad u dilaysaan inuu yidhi rabbigayga waa allah, maxaa kalaad ku haysataan? sidoo kale xadiiskii asmaana waxaa ku sugnaa abubakaraa cid qaylinaysa u timid uu yidhi guriga ay tiri, guriga ugu yimid cid qaylinaydo oo maxay leedahay ciddaa? waxay leedahay war saaxiibkaaga ka gaaro. abubakar wuu naga soo tegay tiri asmaa'a, isigoo madaxiisa 4 meel uu u daban yahay, timihiisa 4 meel uu u dabay. weliba wuu soo bax asigoo dhahaya taqtuluuna rajulan an yaquula rabbiy allah, ma ninka waxaad u dilaysaan inuu yidhi rabbigayga waa allah. markuu saa yidhi tiri ay ka mashquuleen, abubakaray ku soo jeedsadeen, ay garaaceen. wuu noo soo laabtay tiri abaabakar asigoo madaxiisa timihii uu dabtay meel aan laga taaban karin. meeshaad ka taabatay timaha ay la soo go-ayaan, gacantaada ay soo qaadanayaan, ay soo raacayaan. marka axibbatii fillaah, allah diinkiisa heerkaana lala maray. micnaha siirada marka lagu ammaanayana micnaheeda diintaada inaad kiira u yeelato, inaad u xanuunsato, inaad ogaato rasuulka yuu yahay, muxuuse u soo maray diinkan. ragga alla doortay, jeclaaday, qaaliga ka dhigayna muxuu alla ku doortay? diinkan inay rasuulkii ilaahay ay ku garab istaageen, ciddii rag ahayd iyo wixii dumar ahaaba. marka anagana micnaha siirada laga fahmayo la raba inaad ka ogaato, waad ogaanaysaa shaksiyada rasuulka iyo wuxuu u soo maray diinkan, si anaga naar uga badbaadno, ilaahay jannadiisana u galno, adduunna gumaysi iyo dhib ciriiri bani aadan saan uga bixi lahay. marka maanta anaga meeshii inaan kasii dhaqaajino ayaana laga rabaa. bismi illah, alxamdu lilah, watanaa'u lilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah. allahuma inii as'aluka ya da aljalaali waalikraam, allahuma raxmataka arjuu falaa takilnii ilaa nafsii tarfata caynin, وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله سبحانه وتعالى دمانتنا نجي لكوة انت مقلي وركا كيس أقوى نكس النقاطي دمانتنا إله إيدن بركيو سيد الشرف تبضن آت دقاه أقرى رعيدين آت أصو حاضرتين قول كستبا ee ka soo qayb galay. waxaan leeyahay ilaahay dadkooda u nimcay, u naxariiso, u barwaaqay, adduunya aakhiraba caafimaad ku galadayso, ay kugu caabudaan, adduunyadoodii xalaashan ay ku raadsadaan. allah iyo wixii waalida owlaad leh u barakay owlaadiisa, una ilaali fisqiga iyo dulmiga uga ilaali. waxaan waalid ahayn wiil ah ee waalid loo yahayna baari uga dhig waalidkooda. allahayow ilaahayow na hagaaji, na hanuuni, noo naxariiso, dembi dhaafna sii, na barakeey. ilaaha idin barakeeyo, ilaaha idin naxariisto, allah ha idin xifdiyo adduunya aakhiraba, hana idin fahamsiiyo xaqa, qalbigeenna ha ku shubo nuurka diinkiisa. dhammaantiinaba inta soo xaadirtay caawa casharkaanana akhrinayo. wabillahi towfiiq, wallahu aclam bisawaab. wasali allahuma وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.